qofka Soomaaliga waxa la baraalay laakiin qofka aan rabno inuu noqdo dhawaan waa kuma nooceen rabnaa qof shakhsiga Soomaaliga rabna inay waxbarashadeenu ay samayso oo ay soo saarto waa nooceen qofka ay waxbarashadeenu soo saarayso maxaa xalaal u ah maxaa xaraam ka ah seebu u egyahay seebu u fakaraa waxaan rabnaa waxbarasho qofka ay soo saaraysaay uu qiyam leeyahay waxna ka xalaal yihiin waxna u xalaal yihiin waxna ka xaraam yihiin oo qabyaalada aan geyn oo dadka xoolahooda u yaqaanay inuusan isagu lahayn oo hantida qaranka ilaaliya oon tuug ahayn oo bani aadamka la dhaqmi kara oon caniif aan ahayn oo aan isqarxinaynin oon masaajid dad ku leynaynin oo walaaltinimada hadda ustaadku sheegaya yaqaana oo midnimada dalkan yaqaana iyo dadkan oo xishoonaya oo dhaqankii Soomaalida yaqaana qofkaan rabno qof yani asaga dadka saabo isu arkaa asagu sidee buu arkaa Soomaalida sidee buu arkaa caalamka qof la sifeeyay oo siyaasad waxbarasho oo qofkay soo saaraysa ay caddahay ayaa wasaaradda laga rabaa kamka ama quantity-ga oo la yiraahdo intaas soo baxay waxaa la socda waa muhiim laakiin waxaa la socda waa in uu quality-gina la socda oo aan ku fakarno aan taas qorshaha yani qorshaha ay doonno qorshaha 4 sano hadda inay waxyaabahaas ku jiraan yaan rajeynayaa Saciid marka waxaan rajeynaynaa mar haddii hadda intii hadda uu joogay ustaad Cabdullaahi laga soo bilaabo hadda ku sii dar waxaan rajeynaynaa ustaad Faraxna 4 sano inuu joogo intaas at least kuwa dhashay waxbarashada u jeeda kuwa waxbarashada dhigta iyo kuwa hadda soo gali doona in laga waayo mid isqarxiya mid qabyaaladista ah mid hantida qaranka iska booba mid aan dan Soomaaliyeed aan garanayn intaas in laga waayo rajeynaynaa oo waxbarashadu markaas ay qiimo leedahay markaas ay wax tartaa waxbarashadu waa isbedel waa tagyiir iyo qofku inuu isbedelo ayaa la rabaa waxbarashada cilmiga barigii hore waxa la yiri jaamacadaha laba shay bay ka shaqeyn jireen waagii hore waxay ahayd to gain knowledge qofka inuu cilmi qaato kadibna to disseminate it ana cilmiga qofka inuu qaato dan uu dadka u sii dhigo ayay ahayd oo sidaas un bay iskaga socon jirtay laakiin waxaa la rabaa in lagu daro mid saddexaad oo adduunyadu ku darsatay markii dambe oo ah in lagu xaliyo problemka bulshada hadda yeena inaga noqon inuun sii hore inaga in aan wax baranno dan aan sii barno laakiin cilmigu waa inuu xaliyo cudurrada bulshada in lagu xaliyaa la rabaa waa inuu xaliyaa marka waxaan rajeynayaa inaan u soo jeesano dhinaca xagga tatbiiqa iyo in cilmigii uu noqdo dawo wax lagu xalinayo oo mushkiladaha inay haysta lagu xalinayo ayaan rajeynayaa